gudoomiyaha komishanka maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland mudane Axmed Jaamac Maxamed ayaa booqday xarunta tababarka uga socda dhalinyarada loo carbinayo barnaamijka shaqo qaran ee ku jira xerada tababarada ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Daraweyne waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gudida maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xubnahan ku hirinayay safarkaasi saraakiil iyo macallimiin ka tirsan xeradaasi iyagoo warbixino ka siiya gudoomiyaha sida loo carbiyo dhalinyaradaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo aasaas ka dhigay ama balaaqaadkiisa ka dhaweeyay in ayaan ugu mahadnaqayaa waana soo koobaynaa dhalinyaro ahaan iyo ardayda shaqo qaran ka baxaysa halkana nin walba gobolku ka yimid lixda gobol ee dalku ka yimid dowladda degmada magaranaysa doorashuu ka yimaadeen nin walba gobolku tegaya waa inay xambaartaan waajibaadka markaa qaadayna fariimaan Musa Maxamed Musa oo kamid ah dhalinyarada tababarka uga socda xerada ciidanka qaranka ee Daraweyne kana mid ah barnaamijka shaqo qaran ayaa ka hadlay dareenkiisa waxaan qabaa inuu yahay waftigii saddexaad ee ugu soo booqda xarunta carbiska shaqo qaran oo aan ugu bixiyay xarunta hoggaanka mustaqbalka iyo xaqiijinta ayaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta barashada nationalism-ka ama wadaniyadda dhabta way sida loo wada ogsoon yahay la dhaqanka ciidanka qaranku wuxuu astaan rasmi u yahay barashada iyo qiimaha ay leedahay wadaniyadda tooyinka kala duwan ee xukuumaddu waxay kor u qaadi doonaan runtii hanka iyo himilada ardayda ama hoggaanka mustaqbalka dalka waxa wax lagu farxaa in xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ay ka shaqeynayso horumarinta dhalinyarada iyo aqoonyahanka maamulaha shaqo qaran mudane Cabdikariin ayaa isaguna halkaasi warbixin ka siiyay gudoomiyaha gudida maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland sanu horaba u soo waday arbaskii lagu talagalay shaqo qaran ardayda shaqo qaran gudoomiye waxa uu la socday civil education baa la socday lecture ay markaas ku qaadanayeen taasoo maanta ay qayb ka noqonayso lecture-ka maanta halkan laga soo jeedin doonta insha Allah ta'ala qaranka hadduu waayo maamul wanaag hadduu musuqmaasuqu ka bixi waayo oo musuqmaasuqa laga hortagi waayo qarankaasi beel ma gaaro xubin kamid ah gudida maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland mudane Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil ayaa isaguna halkaasi ka hadlay la doonayo inay mataqaana gudbiyaan muwaadinimadu waxay tahay ummaddu sida loo hagaajin karo sida horumar loo gaari karo idinka maanta mataqaana nasiib helay ina mataqaana arrinka gudbisaan dambeyntii waxa halkaasi hadal ka jeediyay gudoomiyaha maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland mudane Axmed Jaamac Maxamed oo dhalinyaradaasi halkaasi lagu carbinayo uga waramay maamul wanaagga muhiimsan ee mabaadiida maamul wanaaggu haddii maamulku hagaago musuq ma jirayo kala dambeyntaas iyo maamulkaas haddii wax ka qalloocsamaan waxa imanaysa markaa wixii inuu musuqmaasuq yimaado mabaadiida maamul wanaagga ama tiirarka ugu muhiimsan ee maamul wanaaggu horta marka hore waa bayaannimo banyaal markaan leeyahay waa wax banaanka yaalla ha u qaadanina laakiin waa wax cad oo muuqda waa isla xisaabtan oo in aad la xisaabtanto qofka xilka ku haya iyaduna waa waajib oo muwaadinku xaq buu leeyahay inuu la xisaabtamo qofka xilka u haya markaa waajibaadka shaqo u haya u gudanaya waxaan nahay adeegayaashii muwaadiniinta Soomaaliland marka laga soo bilaabo shaqaale hoosaad ilaa madaxweynaha qaranka dhamaantii waxaan nahay adeegayaal u adeegaya bulshada Soomaaliland adeega aanu bixinayna qurbo jooga aan ahaa dalal badan baan soo maray lacaguma soo doonan dalkayga oo igu wallaahi waxaan u soo doontay aqoontaan bartay inaan dib ugu celiyo ayaan dalka weymay sababta ay jeclaysiisayna waxa weeye marka aad waxaad leedahay weydo ee dal aad leedahay weydo ee magacyo kale lagu yeero ee waxyaalo fara badan oo maanta halkan munaasab aan ku ahayn aan soo aragnay lagugu yeero ayaad ogaanaysaa in wax ka maqan yihiin waxa ka maqan oo dalkaagii hooyo Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa